cabsida iyo kalsooni darrada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka ku joojiya inuu soo hor istaago bulshada. haddii labadaa lala tacaalo waxaa kordha isla markaana awood iyo dhiiranaanta qofka ee fagaara ka hadalka. marka laga tago sida loo kala aftahansan yahay, haddana fagaara ka hadalku waa xirfad ka bilaabanta kalsoonida. haddaba sidee ayaa labada qodob la isu waafajin karaa si qofku u soo hor istaago bulshada isagoo maskax ahaan dhisan? waxaa ka mid ah astaamaha qofka bilowgaba ka soo muuqda ee ku tusinaya inay cabsidood la hadal jirto. qofku ay ku adag tahay inuu la sheekaysto ama uu la doodo dadka ka waaweyn. xilliga fasalada iskuulka lagu jiro way ku adag tahay inuu ardayda dhexdooda macalinka su-aal ku weydiiyo ama uu ka jawaabo su-aalaha macalinka xitaa haddii uu garanayo jawaabta su-aasha. waxaa kaloo ka mid ah qofka oo aanu hadalku dhaqso uga soo bixin sidii qof hagaagan yeeshay oo kale, ama ay hadalkiisa ku badato in iyo wixii lamid ah. dhammaan waa wax iska caadiya, dadka duniduna ay ka wada siman yihiin. su-aashiise waxay tahay, waxani ma wax joogto ah waa mise waa wax laga gudbi karo? ugu horeyn waxa war lagu farxaa ah in dad badan oo maanta dunida caanka ah marka ay noqoto inay kasoo hadlaan fagaarayaasha ay sidaas oo kale ahaayeen oo ay ka baqan jireen inay soo istaagaan stageka, maantana ay khudbado u jeediyaan malaayiin qof ah oo dunida ku nool. waxaana dadka ka mid ah Dr. Zakir Naik oo ah daaci islaamiya. waxa uu ahaa mid aad uga cabsada fagaarayaasha, maantana waxa uu khudbado u jeediyaa malaayiin qof, weliba isagoo ku hadla luqadaan tiisi hooye ahayn. sidaas oo kale ayaad uga gudbi kartaa caqabadahaas haddii aad la timaado isla dadaalka ay la yimaadeen. waxaa ka mid ah waxyaabaha kuga caawinaya fagaara ka hadalka qodobadan soo socda. qodobka koowaad, cabsida fagaara ka hadalka. waa inaad fahantaa waxay tahay cabsidani, sababta cabsida keentay, iyo sida lagu gudbi karo cabsida. waxyaabaha ay bini'aadamku ka cabsadaan way fara badan yihiin. waxaa ka mid ah mugdiga, xayawaanada qaar, cudurrada, dhimashada iyo kuwo kaloo fara badan. waxaasoo dhan marka la soo wada daro waxaa kaalinta koowaad ka galay xagga badnida dadka ka cabsada fagaara ka hadalka. haddaba kuwa kale cabsidooda waxaa sabab u ah fulaynimo meelaha qaar ah, halkii cabsida fagaara ka hadalka ay sabab u tahay kalsooni la-aantu. kalsooni la-aantaasi ma aha mid qofku aanu noloshiisa oo dhan ku qabin, ee waa mid la xidhiidho oon waxa uu doonayo qofku inuu ka hadlo oo aanu si fiican ugu kalsoonayn. tusaale ahaan inaanu si fiican isu soo diyaarin, ama aanu aqoon fiicanba u lahayn waxaanu ka hadlayo, isla markaana aanu isi soo tijaabin. qodobka labaad, waa maxay xirfadda iyo mijaalka nololeed ee mustaqbalkaagu? maxaad jeclaan lahayd inaad dadka kala hadasho oo aad u jeediso? ma inaad macallin noqoto oo aad arday u jeediso duruus? ma inaad daaci noqoto oo aad dadka diinta barto? ma inaad ganacsade noqoto oo aad wax soo saarkaaga iyo guulahaaga dadka la wadaagto? ma inaad siyaasi noqoto oo aad ka hadasho arrimaha dalka iyo ummadda? ma inaad arrimaha bulshada ka shaqayso dadkana wacyigeliso? shaqooyinkan iyo tobanaan kale oo la mid ahba dhammaan waa mid u baahan inuu qofku yaqaano si uu horumariyo xirfadiisa fagaara ka hadalka. hadda adiga shakhsi ahaan ma kuu caddahay meesha aad isleedahay way tahay inaad ku tababarato? waa qodob muhiim ah oo ka qayb qaadan kara in xal loo helo caqabada kaa hor istaagi karta fagaara ka hadalka, oo ah cabsida iyo codkar la-aanta. kadib markaad ogaato xirfadaada nololeed, isku day inaad horumariso si fiican loogu wanaagsanaato buugaagta iyo maadooyinka la xidhiidha kaalintaasaad nolosha ka qaadan doonto, isla markaana dadka kala hadli doonto. markastood xirfadaada kor u sii qaado waxaa sii kordhaya kalsoonidaada. markastoo ay kalsoonidaasi korodhana waxaa meesha ka baxaya cabsidii iyo walaacii. qodobka saddexaad, nashaadka ama istirka. waa muhiim intaad ardayga tahay inaad ka faa'iidaysato fursadaha kuu saamaxaya inaad dadka la hadli karto, haba noqoto 5 qof ama 100 qof. tusaale ahaan, ka qayb qaado howlaha tabarucaadka iyo shaqooyinka ee ka jira iskuulkaaga, waqti badanna ku bixi si aad arrimaha xubin uga noqoto. waxaa suurtagal ah inaad ka hesho fursadaha ardayda kula hadasho, isla markaana aad ugu tababarto xirfadaadii. ugu dambayn, waxaan kugu boorinayaa inaad ka faa'iidaysato fursad kasta oo kusoo marta oo aad ku kororsan karto aqoonta gaarka ah ee la xidhiidha fagaara ka hadalka, ama waxa afka qalaad loogu yeedho public speaking.